السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo axada oo isniin ay soo galayso taariikhduna waa 19 Oktoobar sanadka 2025 barnaamijkuna waa kii saddexaad waxaynu ku soo aruurinay wararkii ugu waaweynaa ee maanta dhacay gaar ahaan Gaza wixii ka dhacay sida la socotaan Gaza saakay nagta la iska saaray ilaa markii dambe xaaladdu ay xasilooneed caaw muxuu waagu ku bariyay maxay soo saareen cisbitaalada Gaza inta qof ee maanta Israa'iil duqeymihii ay ku dishay Trump oo sheegay in uu ballan ka helay Hamas maxay tahay ballanta ay Trump iyo Hamas wada dhigteen Israa'iil oo dhankeeda sheegtay inay ilaalinayso xabad joojinta waa maray 100 weerar ku qaaday maanta meelo kala duwan oo Gaza ka tirsan dhexdhexaadiyaashii maxay yiraahdeen isku soo duub caawa wararkii ugu waaweynaa ayaan idin hayaa wixii dhacay maantay ilaa caawa xaaladdu sida ay tahay inta aan ku jirno barnaamijka wixii wararey soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waxaynu ku bilaabaynaa inta badan barnaamijkeena ama gebi ahaantiisba waxaynu kaga hadli doonaa wararkii dhacay saacadihii la soo dhaafay wixii soo kordhay ilaa caawa haddaba waxaynu ku hormaraynaa oo marka hore ku bilaabaynaa Israa'iil caawa laba war ayay sheegtay laba war oo waaweyn ayay ka hadashay caawa warka koowaad waxay tiri waxaan ilaalinaynaa xabad joojinta oo inay burburto ma rabnay dheheen haddaba markaan idin tuso waxay leeyihiin kanaalka 12 ee Israa'iil ay leedahay caawa wuxuu yiri Israa'iil waxay sheegtay inaanay doonayn in xabad joojinta ay burburto haddaba marka xabad joojinta ha burburto ama yeesan burburine maxay leedahay waxay samaysay maanta 100 hadaf ama 100 meel ayay wax ku riday maanta oo Gaza dad kala duwan ayaa wax ku noqday marka waxyaabahaas oo dhan waa u tagi doonaa qodobka labaad ee wararka caawa soo kordhay waxaa ka mid ah wargeyska la yiraahdo Axios ee Mareykanka laga leeyahay wuxuu sheegay in dib Israa'iil ay u furi doonto berito oo isniin ah macbirta ama macbarada meelaha xuduudaha ah oo gargaarka laga gelinayo Gaza kadib markii cadaadis Israa'iil uu kaga yimid dhanka Trump mas'uuliyiin Israa'iiliyiin ayaa waxay sheegeen in Israa'iil ay caawa ka laabatay go'aankeedii ahaa inay xirto goobaha gargaarka galayo kadib markii Trump iyo kooxdiisu ay cadaadis xoog la saareen oo ay ku yiraahdeen waa inaa furtaa degdeg u furtaa ma ujeedaa Trump wuxuu leeyahay waa inaa furtiin marka berito oo isniina ayaa macbarada la furayaa leeyahay maanta xataa wax gargaar oo galay male maxaa gargaar galaya baabuurtii iyo wixii gargaar ka waday haddii la fasaxo meel duqeyn ku socotay yaa gali kara 20 weerar ayaa dhacay maanta ay ku qaadeen diyaaradaha Israa'iil 100 hadaf ay yiraahdeen 100 hadaf 100 meel ayaynu duqeynay 100 ka meel kulaha waxay ahayd bartilmaameedyo Hamas marka hawshaas halkaas way maraysaa maxaa kaloo marka cusub Israa'iil maanta in nagta laga saaray waa qarad caawa waray soo saareen nimanku waxaan islahaa maxay weerarada ugu waasheen oo Gaza u duqeynayaan ilaa waa niman la kululeeyay nimanka muqaawamada niman igu soo booda ma nagta laga saaray maanta haddaba aan idin tuso Israa'iil waxay qirataa leeyahay in uu ka dhintay sarkaal sare oo ciidankeeda ka tirsan iyo askari labadaba inay ka dhinteen dagaalkii maanta ka dhacay Rafah ciidanka Israa'iil caawa war ay soo saareen ayay ku sheegeen sarkaal iyo askarigii la socday koonfurta Gaza deegaanka Rafah inay maanta ku dhinteen haddaba waxaa la sheegay in sidoo kale askar kale ay ku dhaawacmeen weerarkaas waxayna ka tirsanayeen guutada maanta dagaalka gashay ee la yiraahdo 932 qaybta la yiraahdo naxaal qaybta la yiraahdo nimanka marka waa la kulay maarta si fiican loo garaacay
sargaala naga dhintay askari kuwa kale waa naga dhaawacmeen waa afkooda intay ka sheegteen waay meeshii sarkaal ku dhintay askar maa nool intaas waa u xisaabay adiga iyaga intay sheegtaan u qor marka waxay leeyihiin sargaalkaas ayaa naga dhintay ayay leeyihiin waayahay maxaa kaloo marka cusub wararka cusub waxaa sidoo kale ka mid ah aljazeera waxay leedahay kanaalka 12 ee Israa'iil wuxuu leeyahay waxay samaysay Israa'iil 100 meelood oo Gaza ka tirsan ayay maanta duqeeyeen saacado kooban ayayna 100kaas duqeeyeen kadib markii dagaal culus uu ka dhacay Rafah oo nimanka halka si xun loogu galay warkaasu marka isaguna waa wararkii ugu dambeeyay marka wararku iska soo daba dhacayaan waxa soo kale warka caawa soo kordhay isaguna kamid ah Hamas iyaduna waray soo saartay maxaa soo marnay Israa'iil waxay tiri xabad joojinta anagu waa ilaalinaynaa Soomaali Hamas iyaguna waxay leedahay annaguna waa fulinaynaa wixii lagu heshiiyay xabad joojinta markii hore ma aanan ku xad gudbin laakiin nimankan iyaga sameeyay haddaba marka aad tuso aljazeera waxay leedahay Hamas waxay sheegtay in ay fulinayso heshiiska wixii lagu gaaray waxayna ugu baaqday wadamada dhexdhexaadiyaasha ah Israa'iil inay joojiso waqful cudwaan maartay waxyaabaha ay halka ka fasameynayso oo cadawtinimada iyo gardarrada ay sameynayso waa inay joojisaa marka maxaan haynaa Israa'iil waray soo saartay iyo Hamas waray soo saartay labaduba muhiimadda aynu ka ogaanayna maxay tahay inay leeyihiin heshiiska waa ogolnahay waa wadaynaa laakiin Hamas waxay leedahay annagu heshiiska waa ogolnahay laakiin nimankan mar walba duqeymaha iska sameynay hal wax laga qabto haddii kale heshiis meesha ma yaalo ay leeyihiin markay labadoodu marka hadleen ayaa Mareykanka isaguna caawa war cusub ayuu soo saaray مسؤول مريكنا أيا إسقنا هذا عاو وحويري أنجا أيا مسؤول كه فلنتا هشيس كجزء سيدي لو مال مرين لها وحكستو عقبضة كوي مادنا سيدي لوجا جود بلها يا رهاي مريكن أنجا كمسؤول هشيس كوا إنه رقم قرا لكن ماشي علامة سؤال كوشرت أوو إسرائيل وحيلاد هاي مركان دقيني جزاء مريكن كوا وشاي nimankii way soo weerareen waa ka argoosanaya garaacayde marka wuxuu waadiyana maxay marka beeshan lugooyo badan isku dhax socota wax badan beeshan waa la isgaadaya qodob kala jira isagoo caawa wararku way tira badan yihiin soo kordhay waxa kamid ah Trump ayaa wuxuu sheegayaa inuu Hamas heshiis ay galeen ani Hamas waa heshiino leey ترى أبو عروس كشيء ترى أبو عليا حماس الشيء على قلي حتى بقى الجزيرة قريشة بركة وحلا هاي ترى محو يري حماس وحنو قبل لنا وانكوه شيني إني خوب كدجان لكن كوحان أو موريانتا هوبيسن إصابات يلي هذا إني هذا برتل ما متسنيان كوا مركة وحي ربان إني نظيفيان أو مارتي ميل ساران محوليا hubka waa iska dhigaynaa igula ballameyno laakiin kuwaan hubaysana meel saarayna xogaa loo kaadi taraam wuxuu rabo iska sheeg taraam caadi ba taraam waayo wuxuu rabo iska sheegaa ilaa hadda social media waxa haysta war uu taraam ku yiri ninkii wuxuu ahaa Sisi warkaas aad loo hadalhayaa macnaha bahdilaada uu Sisi ku sameeyay ayaa waxay noqotay wax aad markaa yaabo leh warbaahinta qaarkeed iyo social media carabta waxay leeyihiin Trump markuu ka soo dhoofay kulaha Israa'iil wuxuu u socday Masar Sisi marka wuxuu kiciyay diyaaradaha dagaalka diyaaradii oo maartay ninkii Trump ahaa ayaa dhinacyada laga soo galay soo dhaweyn weyn hubkaana haysta diyaaradahana haysanaa Masar hadaan nahay meesha lagu soo dejiyay marka la fadhiyay ninkii Sisi ahaa oo wuxuu ku yiri warniyow maanta diyaaradaydu markay soo socotay diyaarado
ayaa maaragtay dhinacyada iga soo gelisay maanta markaasuu Sisi wuxuu leeyahay haa Masar awood bay leedahay haa laakiin waxaan ku farxay kulaha diyaarada aan annaga samayno waaye marka maadaama aan naga iibsatay diyaaradahaas say u gadgadoomayaan cajiibay ahayd marka hadda kadib annaga le wax naga iibsa kulaha ninka taraaba nin ka qatarsan adoo ujeedidoo kuu dhammayna baabaho kaa dhigaya marka warkaasaa wuxuu noqday war weyn oo warbaahinta haysta caawa ayuu noqday wararka kale ee caawa soo kordhay waxaa ka mid ah oo maaragtay muhiimka ah xamaas war kale soo saareen xamaas waxay yidhaahdeen xaaladda Israa'iil ay wax ku wado oo duqeymo iska socda ah wax shaqaa maba qaba karnaa shaqadiina la ka sugaayay oo ahayd lafihii yahuudi inaan raadino see ku raadinayna nimankaan iska kaana duqeynaya diyaaradooda xadba male anytime ay soo kacayaan waqti kasta waa iska kaana duqeynaya marka anagu shaqadaa waxba kama qaba karnayne haddaba aan idin tuso Al-Qassam ayaa waxay sheegtay Israa'iil waxa ay wado inay wiiqayso baaritaankii ay baarayeen oo ay raadinayeen lafihii yahuudi maaragtay la qabtay maaragtay lagu dilay Gaza lafahoodii inay markaa wiiqayso dhanka kale Xamaas waxay sheegeen maanta iyadoo culayskaas uu jiro inay heleen jutha asiir ama lafo nin yahuud ah oo gumaystaha dadkii laga hayay oo meesha ku dhintay marka waxayna sheegeen inay isla caawaba u dhiibayaan hay-adda ICRC waxay leeyihiin nimankanu nabad iyo in lafa la soo saara ma rabaan maanta ayagoo duqeymihii socdaan hal xaba soo helnay dheheen marka lafaana maalin walba waa in ka tarbiil la qaataa la raadiyaa marka arintaasu marka waa arrin marka waxay yidhahdeen dhibaato kale keenaysa waaye marka wararkaasu marka waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa qaybo kale oo hadda soo dhacay ayaa noo dhiman laakiin update ah oo wixii hadda socda la soconaya caawa sidee xaalku yahay qoraxdu maxay ku dhacday bari ilaahay ayaana gaarsiin doona xaal siduu noqon doono laakiin waxaan ka sheekaynayna waxa waaye caawa wararka soo baxay marka waxaa caawa wararka soo baxay ka mid ah oo jaziira qoraysa ninka la yidhaha Witkoff iyo Kushner Witkoffku waa ninka u qaabilsan Trump wada hadallada gaar ahaan bariga dhexe waxa ka socda ninka odayga ka awaayo ninka marka muxuu dhahay ninka war cajiib uu dhahay ninka Israa'iil oo fariin u soo diray hadda wuxuu joogaa Washington Israa'iil wuxuu ku yiri Turkiga u fasax inay galaan Gaza saacadaha soo socda Turkiga horta qayba gashay waataan idin sheegay cagaftoodii wuxuu laakiin hay-aday iyo waxaasa lagu sii daayay laakiin ninkan Mareykanka muxuu leeyahay waa ina u fasaxdaan Turkiga kooxda ka timid dhamaanteed iyo qalabkooda inay Gaza galaan si ay lafaha u soo saaraan oo loo gudbo wareegii labaad in loo gudbo marka warkaasu isaguna Mareykanka ayuu ka yimid caawa la leeyahay Israa'iil waa inay arrinkaas samaysaan laakiin Israa'iil Turki sideedaba waa ka shakisan tahay ninka Turki la yiraahdo ama Turkiga waa aad uga cabsataa carabtan kale wax dhibaato ah oo ay ku hayaan ma jirto marka Turkidu waxay leedahay ma gali karaan way hortaagnaayeen hadda marka inay ogolaan doonto Israa'iil iyo in kale lama yaqaan laakiin Turkiga ayaa badan nimankii khubarada ahaa markii cagaftii loo daayay qaarkii kale meela u socon ma leedeen xuduudka taagiin teendooyin yaryar haystaan meesha ka dhisteen waxba jiifanayo cuntadooda meesha ku karsanay annaga Gaza noo soo diray dheen Turki maba ku dhaqoray maxaa doonayna Turki shaqadeena inta jirtaa Mareykanka iyo Turkiga qab isdhaay Mareykanka waa midaan uu leeyahay Turkiga loo fasaxo Turkiga wax badan oo naga caawinaya lafaha soo saaraya marka waxay leedahay Israa'iil masaaridu way ka baqaan Gaza inay galaan askarteeda
carabtan kale kulli way ka cabsanayaan muqaawamaday ka baqayaan turkidan muqaawamada maba ka baqayso waxay leedahay adib maxaa kaa galay annaga meeshaas tagaynaa lafahan akuma marsiyoonaysaana soo bixinaynaa qalabkaana wadanaa iyo eeyahan iyo alaabtan waa la soo saaraa wixii lafaha waxa adigu leedihiinna bannaanka la keenaa wixii falastiiniyiintu leeyihiin waa aasanayaan haddii nimankaasu ay idin qabsadaan ka warraro maaragtay idin afduub maxaa idin ka gala adig dadka la afduubanaa maatiin adig shaqa maa ku leedihiin ma noo fasixi kartiin meeshaan barbarsiyadaasay u joogsato lafaha keenaa hadda marka maraykankii muxuu leeyahy witkofa wuxuu leeyahay ha la fasaxo turkiga shaqadaa ha soo qabtaan marka netanyahu iyo kooxdiisana waa arki doonaa kolley wixii ay iyaguna la yimaadaan haddaba caawa barnaamijkeena wararka kala duwan oo caawa soo baxay dhammaantood ayaynu ku soo aruurinay aan idinkugu soo gudbinay waa isla soconaynaa wixii cusub ducada sii wada reer gaza xaalkoodu waa allow sahal mar waa la duqaynayaa mar waxaa leeyahay xabad joojin mar saas ilaahay inuu nabad u keeno ducada ha ka iloobinin marka dadka masaakiinta in ilaahay uu nabad u keeno dowladoodana ay helaan marka hawshaas halkaas inay marto saasaa la rabaa marka idinkana ducada wada ilaahay dadka dhibka ka dulqaadaa leena annaga dhammaanteen ilaahay ha noo naxariisto dhibka iyo mushkiladan haysatana ilaahay ha ka dulqaado dadka muslimiinta dhammaan gaar ahaan soomaalida barnaamijkii caawa akhyaari waa naga intaa wixii cusub beritaa noo ballan haddii alla idmo laagareeya oo sheergareeya fakar iyo aragtina waa muhiim soo qora inta barnaamijka laagareysa aada iyo aad bay u mahadsan yihiin inta kalena waxaan rajeynaya iyaguna inay laagarayn doonaan oo fakar iyo aragti waxay hayaan ay noo soo qori doonaan haddaad ku cusub tahay janaalkeena subscribe-ka ka iloobi facebook haddaad ku cusub tahayna follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamada ku kulmayno iyo warar cusub nabadgelyo